marinbiyood loogu yeero wadnaha dunida isku xira saddexda qaaradood ee ugu dadka badan dunida ayna sanadkii maraan wax ka badan 35,000 oo markab oo kuwa xamuulka qaada ah maraakiibtaas oo wada badeecado qiimahooda lagu qiyaaso ilaa 1 trilyan oo dollar taasoo u dhiganta 10 ilaa 12 boqolkiiba dhaqaalaha dunida marinbiyood leh ahmiyad dhaqaale iyo mid ciidanba wadamada dunida ugu waaweynna ay u kala tartamaan sidii ay saldhigyo ciidan uga samaysan lahaayeen wadamada dhaca marinbiyoodkan leh ahmiyadda intaas leeg ayaa ah badda cas muuqaalkeena maanta ayaynu ku eegaynaa taariikhda badda cas sababta magaca loogu bixiyay ahmiyadda dhaqaale iyo midda ciidan ee ay leedahay wadamada ku teedsan ama ku yaala marinbiyoodkaas iyo wadamada dunida ee ku leh saldhigyada ciidan soo dhawaada jaalaya intaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin in aad leeg saarto sidoo kalena aad muuqaalkan la wadaagto asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo rukumo barteenan mahadsanidin intaynan ka hadlin ahmiyadda dhaqaale iyo midda ciidan ee ay leedahay badda cas aan isla eegno taariikhda iyo meesha ay dhacdo ama ay ku taalo badda cas ayaa ku taala inta u dhaxaysa jasiiradlamoodda carabta iyo galbeedka iyo bariga qaaradda Afrika marinbiyoodkan ayaa waxa ku teedsan 8 dowladood oo kala ah Yemen Sacuudiga dhulka Falastiin ee gumaystaha Israa'iil xooga ku haysto Urdun Masar Suudaan Eritrea iyo Djibouti in badan oo inaga mid ah ayaa u haysta in wadankeena Soomaaliya uu ka mid yahay wadamada dhaca marinbiyoodka badda cas laakiin Soomaaliya ayaa ku taala albaabka koonfureed ee laga galo marinbiyoodkaas dhererka badda cas ayaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 438 ilaa 450 oo kiiloomitir waxay leedahay ilaa 3 goobood oo ay isaga soo dhawaadaan badda iyo barigu kuwaas oo kala ah Baabulmandab iyo marinbiyoodka loo yaqaan Tiiraan iyo marinbiyoodka Joobal waxaana badda cas ku yaala jasiirado lagu qiyaaso ilaa 1496 jasiiradood kuwaas oo inta badan ah jasiirado aad u yaryar oo lama degaan ah sababta loogu bixiyay magacan ayay taariikhyahanadu ku tilmaamaan sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in magacan markiisii hore uu ka yimid kelmad Giriig ah oo kadib markii la turjumay ay noqotay badda cas halka qayb kalena ay tilmaamaan in badda hoosteeda ay ku yaalaan dhir kala duwan oo intooda badan ubaxyo leh markii ubaxyada dhirtaasi ay dhintaan ayay waxay la falgalaan biyaha badda kuwaas oo midabkoodu isku bedelo bunni casaan xigeen ah halkaasna ay tahay meesha uu ka yimid magaca baddan badda cas ayaa hadda iyo taariikhdii horeba muhiim u ahayd ganacsiga dunida 2000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga baddan ayaa muhiim u ahayd ganacsiga iyo isku socodka masaaridii hore sidoo kale 1000 sano ka hor taariikhda miilaadiga marinbiyoodkan ayaa ahaa meesha loo maro dhulka Hindiya waxa marinbiyoodkan ka soo arimiyay maamulo kala duwan sida Iqriiqiyiintii iyo Ruumaankii hore qarniyadii dhexe baddan ayaa muhiim u ahayd isku socodka ganacsi ee Hindiya iyo Masar qarnigii 15aad markii la ogaaday wadada marta bariga Afrika ee loo yaqaan Rajaa as-Saalix badda casna ay gacanta u gashay khilaafadii Cismaaniyiinta kuwaas oo marinbiyoodkan u diiday in ay maraan maraakiibtii reer Yurub dhacdooyinkaas ayaa keenay in ay hoos u dhacdo ahmiyadda ay leedahay baddan ganacsiyaduna ay u wareegaan in ay maraan wadada dheer ee ku soo wareegaysa qaaradda Afrika reer Yurub ayaa dhamaadkii qarnigii 18aad gacanta ku dhigay badda cas kadib markii gumaystihii Ingiriiska Faransiiska iyo Talyaanigu ay la wareegeen dhulkii ku teedsanaa marinbiyoodkaas sida wadamada Masar Djibouti iyo Yemen sanadii 1869 markii la furay kanaalka Suez waxa sare u kacday ahmiyadda badda cas taasoo noqotay wado toos ah oo isku xirta Yurub iyo bariga qaaradda Aasiya waxa kale oo ay noqotay wado ka waqti yar wadadii hore ee ay ganacsiyadu mari jireen gumaystaha reer Yurub ayaana marinbiyoodkan ka sii ariminayay ilaa bartamihii qarnigii 20aad waqtigaas oo wadamo badan oo ku teedsan badda cas ay dib ula soo noqdeen xuriyadoodii badda cas ayaa loogu yeeraa in ay tahay wadnaha dunida marinbiyoodkan ayaa isku xira saddexda qaaradood ee kala ah Aasiya Afrika iyo Yurub qaaradahan ayaa ah kuwa ay ku nool yihiin inta badan dadka ku nool dunida sidoo kale wuxuu isku xiraa badweynta Hindiya badda Carabta iyo tan Atlantiga waxa sidoo kale badda cas ku yaala jasiirado dhowr ah oo maamula isku socodka ganacsi ee dunida waxaana sanadkii marinbiyoodkan mara ganacsiyo lagu qiyaaso balaayiin dollar dowladaha Carabta ayaa maanta maamula
wax ka badan 90% marinbiyoodkan. Dowladaha ku yaala badda cas ayaa ah dowlado qani ku ah shidaalka iyo macdanaha kale ee aadka qaaliga u ah. Sidoo kale waxaa ku yaala goobo dalxiis oo qiimo badan ugu fadhiya dowladahaas, taas oo sanadkii dalxiisayaasha ay ka soo xareeyaan dhaqaale aad u badan. Ahmiyadda ganacsi ee marinbiyoodkan waxaa u sii dheer ahmiyadda xagga istiraatiijiyadda ciidamada, waxaana marinkan adeegsada maraakiibta dagaal ee u kala gooshaysa Afrika, waddamada kale ee dhaca badweynta Hindiya iyo badda Atlantiga ilaa laga gaarayo waddamada Shiinaha, Jabaan iyo kuwa kale ee dhaca badweynta Basifiga. Ahmiyadda ciidan ee badda cas ay leedahay ayaa soo ifbaxday dagaalkii 1973 u dhaxeeyay waddamada Masar iyo Suuriya oo dhinac ah iyo gumaystaha Israa'iil. Wakhtigaas dowladaha Yemen iyo Masar ayaa marinbiyoodka Baabilmandab oo ah albaabka koonfureed ee laga soo galo badda cas u diiday in ay soo maraan maraakiibta u socota gumaystaha Israa'iil. Sidoo kale waxay ahmiyaddaasi sii korortay kadib markii ay dhaceen weeraradii lagu qaaday Mareykanka 2001 bishii Sebtembar 11keedii. Wakhtigaas Mareykanka ayaa go'aansaday in uu Jabuuti ka samaysto saldhig military. Saldhiggaas oo uu ka fuliyo howlgalladii uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada. Wixii intaas ka dambeeyay waxa isa soo tareeyay waddamada saldhigyada ciidan ka samaysanaya waddamada ku yaala badda cas, waxayna waddamadaasi aad u sii bateen 2008 markii badweynta Hindiya iyo qaybo ka mid ah badda cas ay ka dilaaceen burcadbadeedku. 2014 markii waddanka Yemen uu ka qarxay dagaalkii sokeeye, waxa magaalooyinkii waddankaas ee ku yaalay badda cas la wareegay kooxda Xuutiyiinta, iyagoo bilaabay in ay beegsadaan maraakiibtii ganacsi ee u socday dowladihii midowga Carabta ee uu hogaaminayay Sacuudigu lana dagaalamayay Xuutiyiinta. Tallaabadan oo ay ka dhalatay in dowladaha dunidu ay sameeyaan isbahaysi ciidan oo ka kooban ilaa 153 dowladood si ay u ilaaliyaan isku socodka ganacsi ee maraya badda cas. Markii hadda uu bilowday dagaalka u dhexeeya gumaystaha Israa'iil iyo ururada iska caabinta gumaystaha ee Falastiiniyiinta, Xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in marinbiyoodka Baabilmandab ay ka mamnuuceen in ay maraan maraakiibta uu gumaystuhu leeyahay iyo kuwa u socda dekedaha dhulka uu gumaystuhu xoogga ku haysto. Tallaabadan oo dhabarjab dhaqaale oo daran ku noqotay gumaystaha, taas oo sababtay in Mareykanka iyo dowlado kale ay ku dhawaaqaan isbahaysi ciidan oo ilaaliya maraakiibta u socota gumaystaha. Howlgallada Xuutiyiintu ay wakhtigan ka fulinayaan badda cas ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay maraakiibtii kale ee adeegsan jiray marinbiyoodka Baabilmandab. Maraakiibtan oo aad uga cabsi qaba in Xuutiyiintu ay si khalad ah u beegsadaan ayaa bilaabay in ay adeegsadaan waddadii horey looga soo guuray ee Rajaa as-Saalix, taas oo sare u qaaday kharashkii ku bixi jiray maraakiibtaas. Sidoo kalena wakhtigii ay badeecaduhu ku gaari jireen meesha ay u socdaan ayaa isna kordhay. Wakhti xaadirkan dowladaha Mareykanka, Faransiiska, Isbayn, Jabaan, Talyaaniga, Shiinaha, Turkiga, Imaaraadka iyo gumaystaha Israa'iil ayaa saldhigyo military ku leh waddamada ku yaala ama u dhow badda cas sida Jabuuti, Eritrea, Yemen iyo Soomaaliya. Sidoo kale waddamo badan oo dunida ah ayaa ku taamaya in ay saldhigyo ka helaan waddamada ku yaala badda cas si ay lug ugu yeeshaan jihaynta marinbiyoodkan leh ahmiyadda intaas le'eg.